marka waxa weeyaan markii aan sahankaasi wax weeyaan galay waxaan ka geyn waayay oo ay ka tagi weyday inaan waxa weeyaan xisbiga kulmiye aanu ka mid noqono marka waxaan leeyahay taageerayaashaydii waxa weeyaan halkaas aan isu sahmiyay waxa weeyaan niweyn baanahay siyaasiyiinii waxa weeyaan halka iyada ah waxa weeyaan waa guul bataala horumar badan ba yaala gobolka awdal kulay dadweynaha ku nool laba dhinac bay haayeen muhaajiriin iyo ansaar bay haayeen dabadeedna waxa axdigii nabiga muhaajiriintii ansaarta waa tii la walaaleeyay ee mid laga dhigay waxaan leeyahay ama aan aaminsanahay fikirkayga iyo afkaartaydu siday tahay cabdisalaan waa kii midayn lahaa muhaajiriintii ansaarta ku wada nool gobolka awdal cabdisalaan ismaaciil galde oo dhawaan xisbiga kulmiye u magacaabay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Boorama oo maanta la hadlay telefishinka Sow TV ayaa u mahad celiyay xisbiga kulmiye iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa ee xisbigaasi bismillaah alxamdulillah shirkaygan jiraayid horta waxa uu daaran yahay laba qodob waxa weeyaan waa qodob mahadnaqa qalabadna waxa weeyaan waa taageerayaashii wax odhan lahaa haddaan ku horeeyo qodobka mahadnaqa horta waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxda xisbiga kulmiye dhammaantood si guud ayaan waxa weyn ugu mahadnaqayaa xilka ay soo magacaabeen gudoomiyaha degmada haddii la yiraahdo ana waxaan rajaynayaa xilkaasi inaan u guto waajibaadkayga si saxda ah ee lagu talagalay sidoo kale waxaan rajaynayaa inaan waxa weeyaan wixii aqoonteeda ah iyo waxa weeyaan aragnimo aan leeyahay inaan waxa weeyaan aan ku soo kordhiyo sidoo kale waxaan rajaynayaa inay degmadu noqoto waxa weeyaan xisbiga kulmiye waxa weeyaan codka ugu fiican ama codka ugu badan inaan waxa weeyaan ka keeno taasina dadaal dheeraad ay u baahan tahay insha Allah halkaasna waan ka howlgelinaa geesta kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Boorama ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga kulmiye inay u diyaar garoobaan mar kale inay guusha u soo hooyaan xisbiga kulmiye haddaba waxa weeyaan waxaan odhanayaa qaybta xusoo kale taageerayaashayda waxa la yiri moogtay ninka weynii marka reeruhu ay guuriyaan moogtay saham taga moogtay marka waxa weeyaan sahankii aan tagay wakaasaanka marka wuxuu ka eegayaa meel baad iyo biyale oo waxa weeyaan barwaaqa oo roob ku daay marka waxa weeyaan markii aan sahankaasi wax weeyaan galay waxaan ka geyn waayay oo ay ka tagi weyday inaan waxa weeyaan xisbiga kulmiye aanu ka mid noqono oo waxa weeyaan taageeraheeni heel iyo hooban la garab taagnaano waayo waxa weeyaan saadaasha iyo waxa weeyaan sahankeeni halkaasi ayaa waxa weeyaan aan dignay marka waxaan leeyahay taageerayaashaydii waxa weeyaan halkaas aan isu sahmiyay waxa weeyaan niweyn baanahay siyaasiyiinii waxa weeyaan halka iyada ah waxa weeyaan waa guul bataala horumar badan ba yaala waxa weeyaan insha Allah halkaas ayaa inoo balana inta ay ka badan wada hadli doonaa khayr baan rajaynaya geesta kale xasan garaad wiilwaal oo kamid ah dhalinyarada ee arrimaha siyaasadda inta badan ka falanqooda ayaa soo dhaweeyay magacaabidda cabdisalaan ismaaciil galde isagoo oo ku sifeeyay in xisbiga kulmiye uu xushay astaantii uu ku guuleysan lahaa mar kale talada dalka waxaan halkan ka hambaliyaynayaa oon u taaganahay inaan hambaliyeeyo shakhsi aad u muhiim ah oo aad u culus oo xisbiga kulmiye ku soo biiray oo loo magacaabay gudoomiyaha degmada Boorama ee urur siyaasadeedka kulmiye waxaan leeyahay urur siyaasadeedka kulmiye imkuun baad qaadeen dhabadii horumarka iyo waxqabadka maadaama oo aad magacaawdeen cabdisalaan galde oo kamid ah dhalinyarta ugu cadcad gobolka awdal kulay dadweynaha ku nool laba dhinac bay haayeen muhaajiriin iyo ansaar bay haayeen dabadeedna waxa axdigii nabiga muhaajiriintii ansaarta waa tii la walaaleeyay ee mid laga dhigay waxaan leeyahay ama aan aaminsanahay fikirkayga iyo afkaartaydu siday tahay cabdisalaan waa kii midayn lahaa muhaajiriintii ansaarta ku wada nool gobolka awdal ee xisbiga kulmiye iskugu keeni lahaa maadaama in dhowba xisbiga kulmiye uu ekaa mid aad moodo jaranjarta siyaasadda in qaab boqortooyo ama yara beelaysan u taagnaa laakiin maadaama cabdisalaan galde keenay dhabada siyaasadda ee horumarku qaaday